mahad waa maasanta jimowne sida adigu waad marqaatay ka noqotay runtii marxalad xanuunkeeda warta ayaa dhacday galinkii dambe xalayto ama saakis la suuxi hujum ama weerar qorsheysan ayaa dad media lagu soo qaaday weerarka dadka waxa laga yaabaa sabab kala duwan inay meel kala duwan u aanayaan laakiin weerarku wuxuu ahaa qorshihiisa lahayd numberka dad media group oo goora fayay dad media muuqaalkeeda laga baahiyay inuu soo gabagaboway dad media group marka marxaladaas xanuunka badan runtii ayaa dhacday sida adiga waad marqaatay ka tahay kulleeto wanji galinka hore maanta maadaama saacad yar aan kala horeeyno markaan soo kacno waxaan ku baraystay mobilkeyga oo YouTube kala duwan iyo xasanto bidar kala duwan oo marxaladahan la rabin igla wadaagaan oo aan kala hadlay si guud marka xasto waas maqalay waxaan dhahay inteena laga jiraa macada wakiina gudaha ama maswakiina dibadda nidaam gudaha jira oo YouTube-ka markii maxaan ku dhibaato ku dhacayso ama shirkadda YouTube go'aansatay inay adiga maxaan ku dhibaatayso email ku soo qorayaan amba ku digayaan amba inta ka xiraan emailkaasi kaalmana shaqoonayaan waxay ku qabsadeen markii aan gorfeenay aan ogaanay cudurka meesha waxay noqotay in passwordka gmailka shirkadda la bedeshay waxaana bedeshay oo passwordka marqaatiga xubinka dad media group oo afar dadkii soo dhaafay shirkadda iskaga tagay marka cudurka ama dhibaatada ugu weyn ee shirkadda ku dhacday waxa geystay masar nidaami oo xubinka marka wasida marka ma la sii ogaaday micnaha baaritaanka shirkadda ma passwordkeedii dhowr qof ahaay ama shaqaalaha ku soo biiro dhan durdur media ayaa loo ogolaanayaa inay ogaadaan passwordka oo ah meesha ugu muhiimsan ee laga maamulo YouTube-ka in qof walba uu haysto marqaatiyo ka ah passwordka nidaamiye sababta wax xubinka shaqaalaha wali wuxuu ugu fircoonay dad media runtii inta qof ay ka soo shaqeysay si gaar ah si gudbo qofka kaliya aan ku kalsoonaa marka aniga marxaladeeda ka hadlayo nidaamiyo wahay qofku la shaqeynayo oo hoygaada degan oo muuqaaladan wax ka jira ka abad gareynayna sabab password lagu diido kale ma garanayo hadii passwordka loo diido wuxuu u maana shirkadda in laga leeyahay nidaamka shirkadda waa laga yaabaa shaqaalaha iyo waxyaabo kale lagu cadaadiyo laakiin waxa shirkadda ay leedahay in la wadaago waa dhaqan muddo soo jiro ahay marka sababtaas ana keento runtii in passwordka uu gacanta ku haayo oo marqaati ka aado marka wuu nagu ciqaabo marka kaliya hadda waxaan ka marin karnaa in hal qof oo kaliya hadda kadib oo publish garay videoga xubnaha kala durmay marka muuqaalka duubaan kadibna ay ooyadaan halka hoygooda yahay anaga farxad ahaan kullee team kala jiro xitaa lagu tuhmaayo wallahi way kamid yihiin laakiin ani farxad ahaan askala hadlaya waxa lagu cambaareeyaa WhatsApp-kayga lagu soo diraa commentiyada aan ku arkaa inaan qayb ka ahay asxaabta habada ka saartay ama ba aan ahayba durdur media bal arintaasi maxaad kaga falcelinaysaa haddii aad tihiin madaxda durdur media runtii durdur media markii ay bilaabatay oo 2017 asaaskeeda qaybaan ka marka xamar joogay ilaa iminka way dhaceen isku day kala duwan oo nooga imaanayay dad ka baxsan xeendafka durdur media ama YouTube kala haadaano ama dad kale inta muuqaalaan ka soo guran sababka doon caruuna haadaane marka marnaba raad kuma lahayn dhacdada saaka dhacday YouTube kale ama maxaan ku raadayay sheega ama shirkadda YouTube naftigeeda wax raad kuma lahayn waayo qaabka marka YouTube u gashid hadduu YouTube ka ala waxa wada laga saaray oo deactivated oo hala hataa markaas waxa waran lahayn dhibaatada waxa ka dambeeyay YouTube kale markii passwordka la bedelay janji password la sameeyay qofka new password la sameeyay password cusub gashtay marka waa farxasida hadda ay hadlayso sidii inta laga dariiqtay maamulka gacanta u gashay ma fahanti marka sabab marka maxaan ku radaa YouTube-ka lagu aanay ma garan karo laakiin way dhici kartaa bulshada aniga naftigeeda wasaaka markii dhacdaas dhacday oo dareen noocaas ay galab markii ugu horeysay badii cid ugu horeysay aan dareen noocaas ku timaa waa dadka challenge oo shirkadda kala dhaxeeyo laakiin markii aan xuraamay xogta rasmiga ah waxa ogaaday inay ka madax banaan tahay YouTube kale caadi ah oo laakiin asalka uu yahay numberka shirkadda oo aqlaabkaas geystay gudoomiye shirkadda dhowr xubnood oo kala duwan soo maray way imaadaan way ka tagaan way imaadaan way ka tagaan maxaa ka usgareeya marka laga soo gudbo teamkii hore laakiin nidaamiye isagoo 24 saac la soo dhaafay shirkadda memberka ahaa muuqaalo u duubay bedelmo go'aankiisa waliba si degdeg ah markii uu ka tagay kadibna ay arintan dhacday oo naxdinta leh
maxaa ka usgaran kara asleedahay oo maadaama madaxii shirkadda aad tahay wallahi waa runta sababta su'aashaas si fiican laakiin aniga kulli laba sib waa isdhihi karaa dhalinyaranimadiisa in laga faa'iidaysto oo youtubelada muqdisho kuleytaba arrinta noocaas ku dhaliyeen mar hadda xaniyihiin waa hayso jariimo ku sameeya dodor media iyo sida guud tigitaanka dodor media su-aashaas markas ugu soo laabatay si fiican marka dodor media ka shaqeynaya maadaama habeenkaas 6 video laska rabo 0 video laska rabo xasatoobna uu yahay agaasima hadda hawsha kala wado waa lagu cadaadis garaaca la hawshaas sida go'aanka ay qaateen muwaadiniintii hore shirkaddan iskaga hiyaamay go'aankaas lamid u qaatay kagama xumin runtii go'aankaas noo qaateen dhinaciisii sheekooyinkiisa marqaataan ka aheen laakiin waxa ugubka ku ah oo kaga duwan yahay muwaadiniintii kale shirkadda ka tagta waxaa qayb ka ah inuu shirkaddii oo ku qarxay oo inuu jariimo ku sameeyey laakiin hadafkii aragtida waxay tahay isleeyahay waa yar dhalinyaro waxaa laga yaabaa in looga sheekeeyey gebigeeda loo wareegbo maxaan ku irahdaa amba jariimo ku sameey oo adiga xasataba hadda youtube soo samaysta maadaama hadafkiisu yahay inuu youtube samaysto laakiin muhiimadda waxay tahay koleytaba qaladkii gafo galabada koleytaba nidaamkii borseska nidaamka waddanka jira la raacay meesha salka dhigatana koley waa arki doonaa laakiin dodor media maxay ka baranaysaa waa qaladka noocaas oo kale ah shaqaalaha hadda jooga iyo hadda kuwa hadda kadib imaan doonaba xaq uma yeelan doonaa inay markhaati ka noqdaan meesha lagu ablogarinaa muuqaalada hadduu ilaah yidhaahdo inta badan sida aan la socono youtubeleyda qaar way isdhexgalaan arrimo isdhexgal bulsho sameeyaan inta badan reactionada la bixiyo durdur falcelin waxay ka samaysaa oo ah in cadow lagu yahay erey waxaa adeegsateen oo waraysi aad bixisay dugaal aasiisay aan daawaday oo ah in durdur cadowgeeda ugu horreeyay farxasada uu yahay markii sawirkayga la adeegsaday aan arkay ilaa hadda arrintaas fahmi waayay oo marka in reaction la idinka bixiyo cadow lagu noqdo ani xitaa arrintan uga qalqalgelisay sababtoo waxaa isku soo beegmay waraysigiina xafladda ducada aan qabsado aan la socotay hilibka iyo bariiska iyo waxaa isku soo beegmay jabka ku dhacay shirkadda marxaladda horta aan dugaal kaga hadlayo runtii waa si taban si gudba iyo si togan baday ku quseysay cadownimada aniga sidaan u aqaanay saa u taqaan waa la kala labo falcelinta reactionka weligaa muuqaalaha ka bixin jirtay oo sabab kala duwanaad ka dhalili jirtay xanaanka aad ku qaraxdan kolley dadka ku daawanaya ama dadka codkii maqal doonane inaad haddii aad kaftamo inaad reactionna ka bixiyo durdur ayay qayb ka tahay waxyaabaha isu canbixiyey waxyaabaha ku qaraxday oo maanta valuega aad ku leedahay society-ga waxay qayb ka ahayd ciwaanka adeegsanaysa oo ahaa keliya ma aha in dhantagon lagaa fidiyo si fiican ma waa naqaana laakiin muuqaalkii ugu dambeeyay aad soo duwayso oo dadka waxaa haldaro soo tuuray ujeedka maahin dhaliil ama reaction maahin ujeedku wuxuu ahaa inaad burush xaar la marinaysay shirkadda special xasan toob taasaan xanuunihii nabar aan u aragnay anoo horta inkastoo aan muuqaal soo duubin arrintaas shalin waa kaala hadlay si shakhsiyan raaligelina ka bixiyey waana kuu sheegay xasan toobna waxaa ku dhawaabici doonaa waa raaligelina sababtoo ah xafladeyda dhan uuba gambiyey arrintaas darteeda anoo qorshihii processkii raaligelintii wada oo anay ad wada dhammaysanoo wada hadalnay ayaa arrintan dhacday saa darteeda badi dadka dada news ka sameeyey idaacadaha lagu soo qaataa youtubeleyda qaar ee wararka sameeya soo qaato waxaa la leeyahay farxad sidaa qaybkeed in durdur media hawada laga saaro ama la xiro qaabka raba horta dadku u dhigi karaan oo anigaas la hadlayaa adiga iyo dhowr kale youtubeleyda oo caasimada ka howlgala u qaatay bilowga hore maanta markaan ku baraarugeyay marxaladda dhacday
markaan ogaanay oo dadka khubarada oo muddo waxaan ka howlgalay ku dhawaad 3 sano IT media ku jira barno ogaan xogta waxay noqotay inuu yahay password la bedeshay marka passwordka adigana ma heenin qofka loo shirkada ka baxsan ma heenin laakiin number buu shirkada marka caqabada ugu weyn ee dadka inay ku timaan dareen noocaas waa laga qabi karaan waxay ugu weyn ee maanta asla yahan dadka way ku tuumayaan ama jariimada macluumaadka lagu tumo qayb ka ah sheekooyinkaaga ama barta hadda ay la soo farxadsadee waxa uu ku daawacda 70% waxa badan shirkadda wanaag u badan laakiin wanaaga shirkaddan waa bukanaada wanaag shirkadda waa 100% hamar waa laakiin 70% xoqosha sheegtaa aan marka laga yaabaa gudoomiye in shirkadda ay wanaag 100% hamar samayso waay wanaagii u yaraaday shirkadda wanaag way samaysaa ma farxadsadee ma durdur wanaag way samaysaa halkii bilowga hore waxa laga yaabaa shirkadda markii asaasiine ficiladaas ma jiro bilowga aniga markaati ka adigana ay ogidbo inuu ah ficil qurxan oo dhaqanka iyo diinta barada ku lahayd laakiin kadib jiran nolosha ee soo socotay sabab ka duwan nolol eeday laakiin durdur meedi waji wanaaga ay bulshada ku bartay aysan aaminsanahay waxay la tamarkii ay aways dariiqa ka soo qabatay ay maxaan ku radaa hawlgallada shirkadda dhigtay markaas